doorashadan waxaa la dhahaa doorashadii Rooble sida caadiga 2017 dadku waxay leeyihiin doorashada Xasan Sheekh 2012 doorashada Sheekh Shariif tani waxay ahayd inay noqoto doorashada inay farmaajo laakiin maxay noqotay doorashada waxay noqotay Maxamed Xuseen Rooble asoo noolaa la dhaxlay oo sharafta iyo taariikhda iyo maqaamka laga qaatay marka uu ku filgaroobay wax kasta sababta waxay tahay wadada Soomaali ku socota kuma socan xildhibaan waxaan ugu baaqi lahaa horta marka hore kitaabka Ilaahay ku dhaarteen dhaartaasoo ah inay ka shaqeeyaan danta dalka dadka iyo diinta horta ha ka shaqeeyeen marka saddexaad marka qaarkood waxaa laga yaabaa inaad suuqa tagtid wixii aad rabtay inaad soo weysid laakiin wixii aad rabtay haddaad weyso waxa kale yaala waxa ugu fiican aad la qaataa waa laga yaabaa markii meesha la isu yimaado oo dadka ay xildhibaanku oo fiiriyo dadka meesha ku qoran inuu ka waayo qof ani waxaan ka hadlaa qofka dareenkiisa aan ka hadlaa iyo waxaan ka hadlaa moralkiisa kama hadlaayo nin soo rartay iyo nin uu leeyahay iyo nin lacag soo qaata iyo nin tol iyo karin kama hadlaayo waxaan ka hadlaa qofka Soomaaliga khaaliska ah ee moral kale iyo qiyamkii akhlaaqda leh waxa inuu dhaho wallahi hebel jooga ninkii la rabay ma ah laakiin hebel laftigooda marka qaarkood waxaad kala dooran kartaa laba aan wanaagsanayn baad dooranaysaa midka dhibka yar laba aan wanaagsanayn baad waxaad dooranaysaa midka cunfiga siyaasadda yar laba aan kala fiicnayn baad waxaad dooranaysaa midka dadka isu keeni kara because aniga waxaan u baahanahay dadka in la isu keeno cunfiga iyo xoogga iyo qababacda iyo dilka iyo ciidamaynta siyaasadda la joojiyo macna waa maxay xildhibaanow waxaad doorataa ninka ku shaqaynaya qaab nabadgelyo ah dadka wada hadal siinaya bring together aaminsan wax wada lahaanshaha aaminsan kaas aan ka bilowno wixii kaleeto oo de muwaasafaadka oo looga baahan yahay qaa'idka saxda ama hogaamiyaha saxda ah waa u baahannahay laakiin hadda suuqa siyaasadda Soomaaliya sidii la rabay loogama helo laakiin haddana waxa yaala oo suuqa badacada suuqa taal way isdhaantaa oo dadka Soomaaliya way yaqaaniin marka almuhim yaysan dhicin in aad mar kale ku dhacdaan khaladkii aad ku dhacdeen 8 February 2017 oo adinka u jeedina xaqiiqa ah yaan leedin ku qaldin cosmetic Facebook iyo amaan been yaan leedin ku qaldin ama qof kale in leedin caayo yaan leedin ku qaldin marka waa maxay waa markii xaqiiqada iyo ijtihaadka shakhsiga ah qof kastana waxa rajaynaa oo Soomaaliya inuu saacad oo codki dhiibayo dareenkiisa moralkiisa Soomaalinimada ah bini aadanimada ah inay shaqeeyaan kana fikiro 16 milyan oo Soomaali ah masiirkooda iyo adduunyada aakhiradooda cidda gacanta loo gelinayo in laga fiirsado waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh bishaaro macamiil ma doonaysaa inaad hesho dhammaan adeegyada shirkadda isgaarsiinta Somtel adigoo isticmaalaya moobilkaaga simikaar la'aan habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeegga eSIM si aad u furato adeegga eSIM haddii aad isticmaalayso Samsung ugu horeyntii gal settingka moobilkaaga kadibna dooro simikaar manager sidoo kale dooro add mobile plan ku iskaan garee QR code-ka ku gaarka ah ee ku soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel ugu dambeyntii confirm garee hambalyo waad ku guuleysatay isdiiwaangelinta adeegga eSIM ee shirkadda isgaarsiinta Somtel si aad u furato adeegga eSIM haddii aad isticmaalayso iPhone ugu horeyntii gal settingka moobilkaaga kadibna dooro Cellular sidoo kale dooro add Cellular plan ku aadi QR code-ka ku gaarka ah ee ku soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel ugu dambeyntii confirm garee hambalyo waad ku guuleysatay isdiiwaangelinta adeegga eSIM fiiro gaar ah ugu horeyntii hubi inaad haysato internet ka hor inta aadan gudagelin habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeegga eSIM mahadsanid